الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحن كسو دحترني كتابك فقه الميسر أما ميسر كتابك وحن سوقاني باب الصوم بان كسو دحترني وحن سوقاني صومك وحيابها برية. السؤال السادس سؤال اللحاد عدد شيء مبطلات الصوم صومك وحيابها برية صومك كاتش بنيا oo soomkaagii aad halkaa uu kaaga dhammaanaya sheeg. aljawaabu asaadis jawaabta lixaad mubdilaatu sawmi soomka waxyaabaha buriyaaya 10 waa 10 shay mid ka mid a haddaad la timaado soonkaagii waa ka kaca. wahiya 10daasina waaxid alaklu cunitaan weeye camdan si kas ana loo cuno. haddaad cunto si kas a u cunto hilib ah ugaali ah bariis ah wax kastoo la cuno haddaad cunto qaad xataa haddaad cunto xaaraan ma aha markiisii horeba soomkaagii ka kac wey. nabigeena calayhi salaatu wassalaam kasta waxaa ku baxaya uu nebigu inoo sheegay qofka isagoo halmaansan wax cuna isaga soomkiisu kama burayo nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam oo nebigu wuxuu yidhi man nasiya wa huwa saa'imun fa akala aw shariba falyutima sawmahu fa inamaa atcamahu allahu wasaqah. qofka isagoo sooman wax cuna ama wax cabba isagoon ogeynoo halmaansan ilaahay baa cunsiiyey oo cabsiiyey soonkiisa ha wata wii nebigu. laakiin kas markaad u cunto ama u cabto way soo socotaa cabitaankuye soonkaagi waa batala. ثانيا وشرب cabitaan ayaa soonkii buriyey camdan si kas ah wax loo cabo. waxaa la cabayaa ha noqdo juz shaah ha noqdo biyo ha noqdo qiiq iyo sigaar iyo waxay lamid ah ha noqdo oo marka horeba xaaraam ahaa. ثالثا الجماع قلمدي أيا بورينيسا صومكي قلما إن الحاس كاغا أو قلموتا أما حرام متكا أهي بو إلهي كا حرميبا صومكي وكابورين. سادسا متكا لحاد عفوا. رابعا متكا أفراد تعمد القيء منطقة قصد كيسا أيا صومكي كابورين. تعمد القيء منطقة إن لو قصد أو كسل إساكيانو صومكي وكابورين أيا. النبي قال ناينو الشيخ عليه الصلاة والسلام oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waa in istiqaa'a hadduu iska mantajiyo falyaqdi ha qadayo laakiin hadduu mantagu soo dhaafo waxba kuma waajibayo. khaamisan alinzaalu dejin uu biyo dejiyo qofkii gabadhii ama wiilkii ayaa soonka ka burin can mubaasharatin taataabasho uu sameeyey xaggeedna uu ka biyo dejiyo. gabadhii ama wiilkiibaa ninkiibaa gabadhiisii taataabtay xaaskiisii ama gabadhiibaa ninkii taataabatay biyaha ka imaaday soonkii waa ka buraya. أو الاستمناء أما بيه إسكاكينيد وقفكي قعنتيسا أما مالك لبيه إسكاكيننا صونكي وكبرينيا بيه الشهوة دوي. ونبينا عليه الصلاة والسلام بقى إساقنا إنوشيغ عليه الصلاة والسلام إنه نين صائم يا نبي وحوري وأضيء مردون كرا حاسكيغا نبي وحوري ها nin dhalinyara haddana u yimid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam markuu weydiiyo ma tataaban karaa oo ma dhunkan karaa markuu nebigu ku yidhi ma dhunkan kara xaaskayga maya buu ku yidhi leanna ninkan dhalinyarada marka biyihiin ay ka imaadaan baa laga cabsanayay. ninkan odayga ana waxba kama imanayan waa duuq weyn oo iska caajisa wey. saadisan midka lixaad alxaydu xayd baa soonkii buriyaa. soonka xaydku wuu buriyaa hadday gabadhu maanta oo dhan soo soomanayd maqribka markay daqiiqad yar ka dhiman tahay ilmilicsi markay ka dhiman tahay hadday xaydka ka imaado soonkeedii waa ka kaca. saabica midka toddobaad annifaasu nifaaskii baa buriyaa. nifaasku waa dhiig dhalmada gabadhii baa dhashay iyadoo sooman soonkeedii waa ka kac wey. thaamina midka sideedaad aljunuunu waa libaa burisa soonkii qofkii hadduu waasho soonkiisii waa batala wey. taasica midka sagaalaad arriddatu gaalnimadii uu qofku gaaloobay ama ficil kitaab qur-aan uu ku istaagay ama afkiisuba ka yiri gaal baan ahay soonkiisi ka kac wey. caashiran midka toddobaad alxuqnu irbadii baa burisa soonka alghidaa'iyatu ee nafaqada wadatay. irbadda ama faleembada nafaqada wadata ee jidhkaaga nafaqa siinaysa ama cabitaan xaggii ama cunto xaggeed kaa kaafinaysaay soonkaagii way burin laakiin tii qandha jabiska ahayd soonkii kaama burinayso. السؤال السابع سؤال التضباط اذكر شيء مستحبات الصوم صومك وحيابها الله سنيو. الجواب السابع جواب التضباط مستحبات الصوم صومك وحيابها الله سنيا كثيرة ويفربنين منها وحاكمها تعجيل الإفطار أفرك إلا الددجيو
soomaalidu inta badan way khilaafaan middan. markii qoraxdu sidaa u dhacdo horay ka afur. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a ta'khiiru suxuuri, suxuurta inay dib loo dhigo ilaa salaada subax ku dhowaadkeeda waa in laga dhigo suxuurta, waa inaan horay dhowr saacad ka hor aan la sii suxuuranin. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a aliftaaru in la afuro cala tamri, timir in lagu afuro. 3 timirood inaad ku afurto waa sunna, oodan biyo iyo waxyaabo kale ku bilaabin, ajar baadna ka helaysaa. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a ikhtaaru sadaqaati, sadaqooyinka iyo wax la bixidda inaad badiso, raashin bixi, lacag bixi, wixii aad awoodo bixi. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a qiraa'atu lqur'aani, qur'aanka inuu qofku aad u aqriyo ramadaanka markii la joogo. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a adducaau, in la ducaysto cinda aliftaari, afurka agtiisa markaad afurayso. dahaba adama'u wabtalla alcuruuqu wa habata alajru in sha allah, iyo wixii lamid a aqri. wa minhaa waxaa kaloo ka mid a tarkulkalaami, hadalkii in laga tago alfaaxishi ee foolsha xumaa, waa karaaho, soonkaaga ajirkiisina wuu kaa nusqaaminaya. as-su'aalu thaamin, su-aasha 8aad, liman ruuxeebaa yubaaxu loo banneeyaa alfitru inuu afuro fii ramadaana, bisha ramadaan, yay u bannaan tahay inuu bisha ramadaan afuro. aljawaabu thaamin, jawaabta 8aad, yubaaxu waxaa loo banneeyaa alfitru afurkii fii ramadaana, bisha ramadaan dhexdeeda ل5 asnaafin, 5 nooc ayaa loo banneeyaa, 5 noocoo dadka ka mid ah ayaa loo banneeyaa. wahum ayaguna waaxid, almariidu, midkii jiranaa weeye. midka jiran laakiin awoodi kara wuu iskaga tegi karaa soonkii, waa loo banneeyaa oo wuu ka tegi karaa, wuuna soomi karaa hadduu awoodo. ثaaniyan almusaafiru, qofkii musaafirka ahaa weye. musaafirka qofka safray ee wax safar lagu magacaabi kara, meel lagu magacaabi kara u safray, waxaa loo banneeyaa inuu afuro, welibana inuu afuro u ajar badan, inuu soomo waxaa uga ajar badan inuu afuro. ثaaniyan alxaamilu, ثaaliثan midka saddexaad, alxaamilu, gabadhii uurka lahayd iyo walmurdicu, gabadhii nuujinaysa ilmaha wey, ayagana waa loo banneeyaa, wayna soomi karaan. raabica midka afraad, alxaa'idu, gabadhii xaydka qabta iyo wannufasaa'u, gabadhii nifaaska qabay weeye. labadaasi waa khalad, labada looma banneeya inay afuraane waaba xaaraam inay soomaan. inay afuraanna wax soomi kamama ansaxayo, waa waajibba inay afuraan, sababta xaaraan bayba ka tahay inay soomaan. iyagoo u cilmi lah hadday soomaanna waaba inay ku gaaloobaan ba halis ah. khaamisan alcaajizu, midkii ka caajizay can isawmi, soomka xaggiisa ayaa mubaax u tahay, likibarin, da'weyni daraaddeedna uuga caajizay, aw maradin, ama jiro haysa daraaddeed. qofkaasina mubaax buu u yahay inuu afuro, laakiin hadduu iska soomo isagoo duq weyna ama jiran oo sonkor iyo dhiigkar hayso, dhibaato ma leh. hadduu afurana waxaa laga rabaa kan dambe, waxaa laga rabaa fidye inuu bixiyo ama inuu xoolo bixiya laga rabaa. السؤال التاسع، سؤال 9، اذكر sheeg طرق معرفة دخول رمضان، bisha ramadaan gelitaankeeda garashada la garto wadooyinka loo maro. الجواب التاسع، jawaabta 9، لمعرفة دخول رمضان، bisha ramadaan gelitaankeeda barashada la barto طرق wadooyin baa u sugnaaday 3 oo 3 wada lagu bartaa. wahiya 3daasina 1 رؤية هلال رمضان، bisha ramadaan aragtideeda wey. haddaad bishii ramadaan aragto oo la arko oo qof inaga mida uu arko, waajib bay inagu tahay inaynu soonno. waa kow. ثaaniyan ikmaalu ciddati shacbaana، bisha shacbaan tiradeedii in la dhammaystiro weeye. 30 soddonna lagu dhammaystiro yowman oo maalmood. mar hadday 30kii shacbaan dhammaadaan, waajib waxaa inagu ama aynu aragno amayna aan arkine, waajib waxaa inagu aynaynu soonno. ثaaliثan shahaadatu rajulin, nin aragtidii ayaa lagu soomi, gabar ma ah, waa inuu nin yahay, waaxidin oo keli ah, ka badan hadday arkaan alxamdulilah weeye. kaasoo cadlin caadil ah, waa inuuna faasiq qaad cuno oo sigaar caba ah waa inuuna ahayn, khamri iyo qashin iyo waxaa cuno una ahayn. kaasoo mukallaf ahoo baaliq caaqil ah, mukallaf saasaa laga wadaa. calaa ru'yatihi, aragtidiisana ayaa lagu soomi, calaa ru'yatihi, aragtidiisa ayaana lagu soomi. uu arkay bishii, halkaasaa inagu filan. laakiin markay bishu dhammaato oo ramadaan dhammaato, hal nin inaguma filna. hal nin haddii wax ka badan ayna bishii ramadaan inay bishii
ku xigtay ay bilatay ay hal nin ka badan hadduuna inoo sheegin 2 nin iyo ka badan baa la rabaa. hal nin hadduu inoo sheego waa la dhaarinaya halkaa nin, lianna waxaa laga yaabaa qofkani inuu cuntadii iyo waxaan u xiisooday baa dhici karta. laakiin qofka kale ee bisha Ramadaan arkay, qofna gaajo muuna ku degdegeen. saa la ajligeed halka nin waa la aaminay, gabadha lama aaminayo, addoonkana lama aaminayo, canuga yar lama aaminayo, qof waalana hadalkiiba daa. wallaahu aclam wa axkam.